barnaamijka hayaane jaamacadda Camuud 27 dhacdo iyo 27 horumar oo jaamacaddu gaadhay intii ay jirtay. qaybta koobaad waxaad kaga bogan doontaan taariikhda aasaaska jaamacadda Camuud iyo xilligii si rasmi ah loo furay jaamacaddaasi. bilowgii jaamacadda Camuud kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa xidhmay dhammaan goobihii waxbarasho ee dhulkii la isku oran jiray Soomaaliya. taasi waxay keentay in da'yartii ku jirtay dugsiyada hoose ilaa jaamacadaha ay mar kaliya suuqyada ku dareereen iyaga oo rajabeel ku dhow. waxaana muuqatay inay boqolaal kun oo da'yar ah oo shaqo la'aan iyo waxbarasho la'aan ay suuqyada wareegaan, kuwaasi oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalooyinka Somaliland. iyadoo ay ka duulayeen xal u helidda dhibaatooyinka waaweyn ee da'yarta reer Awdal iyo kuwa Somaliland soo food saartay ayaa aqoon-yahano Awdal ka soo jeeda ay soo jeediyeen jaamacad la hirgeliyo. waxa ugu horreyn hindisaha jaamacadda la sameeyey ay ku dhalatay Cabdisalaan Axmed Nuur Ilbro, isaga oo saddex aqoon-yahan oo kale oo reer Awdal ah la wadaagay fikirkaasi oo kadibna si wada jir ah bulshada reer Awdal ay ula wadaageen. aqoon-yahanadaasi ayaa waxay kala ahaayeen Cabdisalaan Axmed Nuur Ilbro, حسن علي عثمان، سليمان أحمد والهذا، إدريس محمد سعد، شروينيه أرند جامعة soo jeedinta ka bacdi waxa magaalada Boorama lagu qabtay 6 bishii 8 sanadii 1996 jir lagaga arinsanayo sidii loo hirgelin lahaa fikradda jaamacadda ee afarta aqoon-yahan soo jeediyeen. waxaa shirku go'aamiyay in sanad gudihii lagu bilaabo hirgelinta mashruuca jaamacadda. markii hore waxa la soo jeediyay in magaca jaamacadda laga dhigo Awdal University, balse markii dambe waxa la isla qaatay in magaca jaamacadda laga dhigo Camuud University, waana halka uu ka yimid magaca jaamacaddu. gudiga waxa kale oo ay u xil saareen Faarax Abdullaahi Faarax Shuun inuu madax uu ka noqdo hormuudka dhaqaajinta arrinta. waxaan xogaye u ahaa Dr. Saciid Axmed Walhada, hase yeeshee duruufo markaa jiray awgeed ayaanay hawshii jaamacaddu sidii loogu talagalay u wada qabsoomin. waxaase la sii fidiyey wacyigelinta hirgelinta jaamacadda ee gudaha iyo dalka dibadiisa. sanadkii 1997 waxaa aqoon-yahankii iyo odayaashii gobolka Awdal ay hawsha u xil saareen Professor Saleebaan Axmed Guuleed inuu hogaamiyo hirgelinta mashruuca jaamacadda. kadibna waxaa la qabtay hawlihii ugu badnaa ee loogu diyaar garoobayay furitaanka iyo hirgelinta jaamacadda Camuud. dalku markii uu burburay gobolka Awdal degdeg waxa looga aasaasay dugsiyadii hoose dhexe ayaa laga aasaasay iyo sekondariyadii oo boorka laga jafay. halkaa waxa muuqatay mustaqbal dhalinyartii dalku ay ku hadaaqayaan oo ay leeyihiin haddii aanan jaamacad haysanin aasaas maxay faa'iido loo leeyihiin dugsiyadan hoose dhexe. waxa kale oo fursad weyn odayaashu isweydiiyeen asaaskeed jaamacad sidee buu inoogu suurtoobi karaa, sidee u suurtagal noqon kartaa inaynu jaamacad dhisnaay, sidee bay suurtagal inoogu noqon kartaa inaynu maamulaay jaamacad, sidee suurtagal noqotaa. waxay dadku ku qanceen inaan Professor Suleymaan dalka aanu ka bixin ee uu dalka joogo. waxay odayaashii ku hadaaqeen iyo shacbiga Awdal oo dhan ku hadaaqeen in la qabto Professor Suleymaan oo la yiraahdo fadhiisada ilaa halka noo fadhiisada dibadna u bixi maysid, dalkana tagi maysid, jaamacad baanu aasaasayna na horgal maxay hay'ad waxaad yeeshaa inaad adigu na horgasho. waxaa la magacaabay guddi farsamo oo loo bixiyay guddiga maamulka mashruuca jaamacadda, kana koobnaa aqoon-yahanadii ugu firfircoonaa ee magaalada joogay waqtigaasi. waxayna kala ahaayeen Professor Saleebaan Axmed Guuleed gudoomiye, Cabdiraxmaan Xaaji Daahir oo cilmi gudoomiye ku xigeen, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jimcaale, Cabdiraxmaan Dheere xubin, Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse Cabdi Quraab xubin, Dr. Saciid Axmed Walhad xubin, Faarax Abdullaahi Fariid Faarax Shuun xubin, حسن عمر هلاس حبين، إنجنير أحمد مدر سيارة حبين، عبد الله السعيد حبين، وحنا حكاين نوطورتي يوسف آدن أبتدون دوزي. إنتينا بدل وحلاقيها بين تسند موقتين إن هذا ركتان بل هالكاي وحنا مريان قدوميها هي فاهم بدل كبحين دونا حالة إيمان تكون سجون تهي جامعة واحد صورة قالي سداعي تهي dhaqaal ahaan, arday ahaan, buugag ahaan, macallimiin ahaan, wax kastaba. waxaan maanta halkan anagu isugu nimid oo noo idinku yeednay in kow sidaa wacaydi sheegay hawl baad noo xil saarteen. hawshii waa hawl
idinkoo dadkii ka wakiila jaamacadaha kuwa dawladdu leedahay kuwa dadku leeyihiin waa kala duwan yihiin kuwa dawladdu leeyihiin wasiirun baa kormeera maalinta wasiirku leeyahay sida xageerba dhici jirtay ee haddaan damiir jirin ayuun baa qabqab un la yiraahdaa ama iskuuladaba tan waa jaamacad dadweynuhu leeyahay cid wali wayna kormeeri kartaa maalintan magaalada dhacna qofkina ka war jaamacadda ka warrawoonada wadadkii baale ayaga baan monitor garanaya tana naga walbadantii wasiiradu na kormeerayeen because marka hore sanadka cusub la isaga bartay waa idin salaamayna hambalyo waxaan waliba aad iyo aad ugu faraxsanahay sanadkii cusub aroortiisii koobaad been halkan camuud aynu isku waraysanayno runtii oo sharaf gaar ah noo tahay waana ku soo dhaweynaa anigoo ka wakiil rag aan idin qadimayay iyo shaqaalaha inta kale iyo aan balyeena hawl badan baa hadsan laakiin at least intii soo korto in ilaahay wuxuu de suurageliyana way suuragalaan waxaan ilaahay damcina ma suuragalay ilaahay inoo fududeeyo tan haddaynu dib yareegno campuskan camuudi 2 sano shaqaynaysay marka 2 bilood baa dheer 2 sano shaqaynaysay sanadkii markaad ka reebto halkaas cali jawhar aynu inamada tababarkii u horeeyay ku siinay 2 sano oo runtii waqtiga bani aadamka hadda dib xisaabisan markaynu magaalada joognaa waxa way nala ahayn haddana hawlo badan baa dhinac markaad ka eegto inoo qabsoomay 2 sano ardadii waxay ka korodhay 250 baan ahayn 250 arday markaa ay loo joogay oo waqti buuxa ardada hadda waqtiga buuxii halkay 250 ka ahayn waa 215 waa kororsiimo xoog leh kuwa waqtiga dhiman ee magaaladuna waa 95 macallimiintu saddex bay ku bilaabeen imkana waa 16 professor baa jooga oo full time waqti buuxa ayaa jooga computersku 0 bay maalinta hal computer ma aanayn imkana 23 baan leenahay qaarkana waxay ku soo socdaan jidkay soo joogaan waa inoo iman doonaan biidnillah transportka labaan haynay 4 baa noo jooga iyo mid aan filayno bani aadamku markuu isxilqaamayo ilaahay isagu isxilqaamayo daacadka iyo tala la yimaado ilaahayna uu fududeeya uga gaan sheegayo 42 kun waxaan 5 kun ahayn inta kale 5 kun waxaan ahayn meelaha nin kula soo wada shaxaaday cimrigiisa la hadeeyaa loo duceeyay Cabdullaahi Xashaan inta socotay Mareykanka imanaysa isaga baa soo shaxaaday laakiin taakuleyntiisa soo dirideeda rag kale la wadaago sheegi doona waxa kaloo jira 5600 buug oo Jarmal yaala imakaan qabanqaabadeedii wadnaa sida loo soo qaadi lahaayo nooligii baa markaa nagu yaradkaaday heer baan naga keenahay Ismaaciil Sugaan Cabdi waa baydaani baa u taqaanaa kaliya baa inta soo shaxaaday oo qolo kale ka soo shaxaaday marka ninka guriga isxilqaamay marna fiir qoodee buuru iyo dumin kara sida loo kale oo imanka dawladda Soomaaliland iyo intaan ganacsatada hadday isu jirno way nagu adag tahay $3 milyan oo kana ku kacayaan inta meel laga wado ta waa hantidii iyada ahayd waxa kaloo intaas waa intii tiradii uun ahayd guddigaasi howlaha loo xil saaray ayaa waxay ahaayeen in la dedejiyo barnaamijka diyaarinta iyo furitaanka jaamacadda Camuud in la sii qaato labadii fasal ee ugu horeeyay ee geli lahaa jaamacadda Camuud iyagoo noqon doona kuliyadihii waxbarashada iyo ganacsiga waxaa la isla qaatay in labadaasi fasal loo sii dhigo luqadda Ingiriiska muddo 8 bilood waxaana loo xulay 3 macallin oo kala ahaa Baarax Cabdillaahi Fariide Axmed Cabdillaahi Carab Maxamed Talan taxtaasi Allah u naxariistay iyo xoghayaha oo ahaa Cali Xuseen Bahdoona Cali hoos u jeeda Somaliland has been initially part of Somalia, a state that has collapsed with all of its institutions. But Somalilanders have never been comfortably part of the former state of Somalia. So in 1991, after a long struggle, they have regained their independence and started on a new path of governance under a state called Somaliland. But this new state did not have many of the infrastructures and institutions that the South had. There was only one university in the former state of Somalia, and that was in Mogadishu. All of the students from regions, including Somaliland, used to take the long and expensive journey to Mogadishu. But after the collapse of the Somali state, that small opportunity has been removed. So thousands of young men and women were roaming in the streets.
So Amud University was started 1997 to address specifically that problem of young men and women who were desperate for higher education. waxaa boorama laga bilaabay qaaraan ururin loogu talagalay dayactirka dugsigii sare ee Camuud oo lagu heshiiyey inuu noqdo xarunta jaamacadda maanta jirta ee Camuud. waxaa isna boorama socdaal ku yimid xasan cali cismaan oo si weyn gacan uga siiyey guddiga howlihii arrinta jaamacadda cusub, gaar ahaan wuxuu daboolay kharashaadkii ardaydu meelihii ay wax ku baran lahaayeen sida agabada kala duwan ee kuraasta, miisaska ee dugsiga Sheekh Cali Jawhar. mishaarka saddexda macallin, xogayaha, waashmaan iyo nadiifiso waxaa laga bixi jiray ugu horreyntii fee $10 ahayd oo laga qaadi jiray bishiiba mar ardayda. bishii Agoosto 13keedii 1997 waxaa imtixaan laga qaaday 148 qof oo ahaa ardaydii dugsiyadii hore ka soo baxay, waxaana laga xooshay 60kii ugu sarreeyay oo loo qaatay ardaydii ugu horreeyay ee jaamacadda Camuud gala. duruusta luqadda Ingiriiska waxaa loo bilaabay Oktoobar 2 sanadkii 1997. ألف لا كرنبي ألف لا أصدبي ألف لا قودي ألف لا كرنبي ألف لا قري ألف لا أصدبي ألف قري. bishii Noofembar 18keedii 1997 waxaa magaalada Hargeysa tagay odayaashii ugu waaweynaa ee gobolka oo ay ka mid ahaayeen Xaaji Jaamac Maxamed Cilmi, Xaaji Daahir oo Cilmi, Xaaji Axmed Miisaan, Xaaji Nuur Maxamed Daarood, Xaaji Daawud Warsame. odayaasha way weheliyaan Professor Salebaan Axmed Guuleed iyo Faarax Cabdulaahi Fariid. waxay xafiiskiisa ku sii mareen madaxweynihii hore ee Somaliland oo xilligaasi ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Mudane Daahir Rayaali Kaahin, kaasi oo u geeyey madaxweynihii hore ee Somaliland Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo uu la fadhiyay xilligaasi wasiirkiisii wasaaradda waxbarashada oo ahaa Daahir Maxamed Yuusuf. waxaana wafdigu madaxweynaha ka codsadeen in la diiwaan geliyana la aqoonsado jaamacadda Camuud laguna wareejiyo xaruntii dugsigii sare ee la odhan jiray Camuud Secondary School. madaxweynuhu intiiba waa uu ka aqbalay wafdiga, sidaasina ku noqotay Camuudi jaamacaddii ugu horreysay ee laga diiwaan geliyo guud ahaan kayga Somaliland. waxaana madaxweynuhu bixiyey lacag dhanayd $5,000 oo uu ku daray lacagtii boorama laga ururiyey ee loogu talagalay in lagu dayactiro xaruntii dugsigii sare ee Camuudeed oo loo gartay inay noqoto xarunta cusub ee jaamacadda maanta Camuud University. برشد علمك وقبوحسد بورم لو ودفوقي برشد علمك وقبوحسد بورم لو ودفوقي برشد qurbajoogta reer Awdal ee ku sugan guud ahaan daafaha dunida ayaa qaybtii ugu weyneed ka qaatay hirgelinta iyo kobcinta jaamacadda sanadkii ugu horreeyay ee intii u dhaxaysay 1999 ilaa 1999 si ay taakuleynta u fududaato una hirgasho. waxaa qurbajoogta loo qaybiyey rugo ama chapters oo mid waliba qaadhanka jaamacadda ay bil walba u soo dirto. maamulka isku dawaridda rugaha waxaa loo xil saaray rugta Imaaraadka Carabta oo ugu firfircooneyd markaasi. waxay guddiga Imaaraadku ka koobnaayeen aqoon-yahanada hoos ku qoran Bashiir Sheekh Umar Gooda oo xilligaasi loo doortay gudoomiyaha, Dr. Maxamed Kaahiye Khalife, Maxamed Maxamuud Xasan Saacad Zaajin, Dr. Umar Ibrahim Xuseen, Nuux Aamin Aar, Ismaaciil Muuse Nuur, Cabdi Barkhad Ismaaciil, Faarax Jaamac Abraar, Daahir Ismaaciil Andad, Professor Axmed Cabdulaahi Boqore. rugta Imaaraadku waxay jaamacadda si joogto ah uga soo gudbin jirtay bil walba lacagaha ay ururiyaan. hawshaasi waxay socotay ilaa bartamihii 1999. arrimaha kale ee muhiimka ah ee rugtaasi qabatay waxaa ka mid ahaa inay jaamacadda u soo shahaadeen ilaa 8,000 oo buugo oo ay ka soo qaadeen markab magaciisa la oran jiray Daa'ulaso oo marayay caasimadaha adduunka isagoo buugta iibinaya. isla xilligaana ku sugnaa Abu Dhabi, Jabuutina ay ka mid ahayd meelaha uu marayay. kadibna xubno guddigan ka kooban ayaa waxay socdaal ku tageen Jabuuti si ay buugaagta markabka ugala soo wareegaan. waxaana tagay Jabuuti xilligaasi waftigu hogaaminayo Professor Salebaan Axmed Guuleed, Allah u naxariistay, Faarax Cabdulaahi Fariid, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Jimcaale, Allah u naxariistay, Maxamed Cabdi Cismaan Good Maxamed Fayfe. waxayna soo heleen 2,000 oo buugo kuwaasi oo buugdhug u noqday maktabadda maanta jirta ee ay leedahay jaamacadda Camuud.
dhinaca arrimaha guddiga ee hay-adaha maxalliga waxaa qayb libaaxle ka qaatay hay-addii sosfo oo guddoomiye ka ahaa cabdiraxmaan xaaji daahir cilmi caydiide hay-addaasi dhaqaale badan ayay ku bixisay hirgelinta jaamacadda camuud waxayna si joogto ah u taakulayn jirtay dhinaca safaarada gudaha si loogu shaqeeyo jaamacadda cusub sanadihii ugu horreeyey ee jaamacadda camuud waxaa deeqdii ugu badnayd jaamacadda siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo 8 xubnood oo abaabulayaasha jaamacadda ka tirsan ku casuubay dalka jabuuti waxa uu ku wareejiyey madaxweynuhu deeq ka kooban 400 oo miisas iyo kuraas isku rakiban 12 kombiyuutar oo cusub bas cusub generator cusub howlihii diyaargarowga furitaanka jaamacadda markii la soo gabagabeeyey waxaa bishii November 3 sanadii 1998 si rasmi ah loo furay jaamacadda camuud ee maanta jirta waxaana furay madaxweyne ku-xigeenkii markaa joogay mudane daahir rayaale kaahin waxaana isugu yimiday xafladda dowladda Somaliland qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada oo dhan xubnihii baarlamaanka ee labada aqal iyo dadweyne aad u fara badan oo kun kor u dhaafayay waxaana ka maqnaa oo kaliya madaxweynaha oo xilligaasi xanuunsanayay halkaas ay ku dhamaatay howlihii diyaargarowga furitaanka jaamacadda camuud jaamacaddan waxay u guurtay xarunteeda cusub ee camuud oo qaybo badan la dayactiray waxaana la isticmaalayay 3 bas oo laba kamid ay soo direen rugta imaaraadka carabta kana soo iibiyeen lacag ay bixiyeen taageerayaashii joogay Sacuudiga iyo Imaaraadka halka waxaa ka bilaabmay wajiga labaad ee horumarinta jaamacadda camuud la soco qaybta labaad ee barnaamijka hayaan ee jaamacadda camuud 27 dhacdo 27 horumar oo ay jaamacaddu gaadhay intii ay jirtay